السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال مالك سنيدك شفتان كسر وهذا ما أنت يو ورك جوا وين أفلام تدقي channel كنا وحنا سوق هذا دونا أخباراتك قدام بي ما أنت أفلام تا ورك جوا وين أفلام تدقي وحكمل أتريشة عن كتابو الله وضع حنبلين يو وارغميت كمل أتريشويك وين هندية واو أنداس أبنا قصولك شاطر هذا يو ولبا كبيرين وين بفيلم كيسوق تجي أسبوع أو لود بلدقيو فيلم كي تاريخي جاها أنداس أبنا سلمان خان آمير خان رافينا تاندن iyo Karishma Kapoor wali waxaan soo qaadan doonaa Farun Dhawan warbogofin uu ekaadayba Farun iyo gabadhu dhalay Saif Ali Khan Sara waxay hadda bilaabeen dubista filimka Koli No One filimkii hadda koor Govinda iyo Karishma ay ku cadreeyeen ba hadda dib loo sameeyaa ninka caanka ah ee lagu magacaabo Allu Arjun ayaa u wacday si uu ugu waxdareeyo gabadha atriishada ka hayd Hindiya ee Tabu oo lagu wacay filimka uu soo wado ninka la yiraahdo Allu Arjun wali waxaan soo qaadan doonaa maanta filimka Benibad oo la soo saaray kaartadiisa waana filim isugu tagayaan Sanjay Dutt iyo Ranbir Kapoor iyo waxaan soo qaadan doonaa filimka Fishal action ku soo wado oo ku dhacaya filimka Vijay Sethupathi iyo warar kale oo xiiso badan oo aflaanta ku saabsan ayaynu maanta soo qaadan doonaa warada saaxiib channel ku xusubtaa noo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay aflaamta Hindiga Bollywoodka entertainmentiga guud ahaan oo uu ku jiro taariikhaha iyo dhacdooyinka sports ee adduunka ugu weyn waayahay bal maanta iyo akhbaaraadkeedii baan eegi doonaayo wararka ugu waaweyn aflaamta Hindiga waxa kamid ah aktarka caanka ah Vishal ayaa waxa uu cadeeyay waa raga Tamilka iyo Telugu raga siifirka jugta jangalafta derbiga laga dhaxbaxayo aanu dadkaas waa ka dambeeya aanu mar horan ba iska dhaafay Shahrukhan iyo Kambalow iyo Amir Khan iyo Salman Khan Tamil haduu fadhiyo gambarka xaq uu iska yaala diyaar laakiin waxaan Hindiya qawl soo daalay hindi kabti hor le wili wada ma hindi lagu daalay hindi jaceelkooda lagu soo daalay waxaad u baahan tahay markaan nimankan qisada fiican feerka macawiista la xirinayo cagaarka badarka lagu cunaayo beeraha lagu dhaxgeenayo wabiyada arkayso waa man fantastic yaaqay waxaanu hindigan maanta jacayl daba ordaya daaro qurxan filinteen soo tusayeen waa ku daalnay waxaan u baahanahay gurija jaban iyo meelo yaab loo baahanahay iyo waxyaabo yaab loo hore u arkin marka nimankan Tamil iyo Telugu Allah abu imamad bay leeyihiin waa niman filmadooda khatar ah ninkan waxa la yiraahdaa mootada saaran Vishal waxa la wada tirishada Tamanna filimkan waxa la yiraahdaa action waxaana wada aktarka weyn Vishal waxa la sheegay filimka kale inuu ku dhici doono filimka uu soo wado isaguna aktarka weyn ee Vijay Sethupathi laba Vijay baa jirta Vijay kale waa taqaanin kana waxa la yiraahdaa Vijay Sethupathi baa la hayo waa Vijay kale hadaba isla soo wadaan be talabati 64 ba isla soo wadaan labada Vijay marka laakiin kan waxa la yiraahdaa Vijay baa waa taqaan isaguna waa aktarada hadda ugu shidan halka ka weeyaan qatar weeyaan yaani comedistana weeyaan waa nin shactira badan marka filimka ninkan uu soo wado ee lagu magacaabo Vijay waan raada filimka Vishal uu soo wado waa ninka mootada saaran waa taqaan ninka kan iyo gabadhaas filimka la wada ee wada taqaan Tamanna Bhatia waxay ku dhacayaan filimka uu soo wado ninka kan ee lagu magacaabo Vijay Sethupathi waxaan labada filim ay soo baxayaan marka la gaaro 15 bishan aan ku guda jirnay November marka 15 bishan isha waxa lagu hayaa in la wada daayo labada filim ee Tamilka ah way isku dhacayaan oo tartan baa dhexmari doona waan arki doona hadii filimka uu soo wado Vishal action ka uu guuleysto ama filimka uu soo wado Vijay Sethupathi uu soo wada guuleysan doona marka waa labada filim hal maalin bay soo baxayaan November 15 filimkan baa ku soo hayo soo bixi doona wararka kale ugu muhiimsan aflaamtu Hindiga isbuucan ina waxa kamid ah waxyaabo ugu muhiimsan waxa la soo saaray waxa la soo saaray kaartada filimka Benibad oo ah filim ay wadaan aktarada waaweyn Arjun Kapoor iyo ninka la yiraahdo Sanjay Dutt Ranbir waxaan ka hadlayay waa Arjun Kapoor oo ninka ilma adeerka uu yahay aktarka weyn Anil Kapoor Anil Kapoor ba adeer Boni ba dhalayo weyn weeyaan ninkan waa ninka la yiraahdo Arjun Kapoor waxa la sheegay inuu film la soo wado hadda aad arkaysaan bakartiis la soo saaray aktarka weyn Sanjay Dutt filimkan waxa la yiraahdaa Benibad filimka kan ee labadan soo wadaan waxa lagu wada inuu soo baxo 6 December baa lagu wada inuu soo baxo marka waa la soo saaray kaartada filimka kan waxa wax ka jilaya aktarka weyn ee Sanjay Dutt oo lagu daray Arjun Kapoor oo lagu daray atirishada lagu magacaabo Kriti Sonam marka filimkan waxa lagu wada inuu soo baxo 6 December marka waa filim sida aad dareemaysan oo militariga koonfurta Hindiya ay la dagaalayaan kuwa Afghanistan waa kuwa Maraathiga Hindiya ay la dagaalayaan kuwa kale ee Afghanistan ku ah
marka waa film boqortooyo iyo dagaal iyo seefo la isku qaadanayo Sanjay Dutt iyo Arjun Kapoor baa filimka wax ka jilaya waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee aflaamtu waxa kamid ah atrishada lagu magacaabo Tabu ayaa looga yeeray filimka lagu magacaabo Fikunta Buramula oo uu soo wado actorka weyn Allu Arjun muddo 10 sano ayuu ku dhawaad ka maqnayd filimada Tamilka inay jisho atrishada tan weyn yaa muddo 10 sano ay ka maqnayd filimada Teluguga wayaan oo ayaan wax Telugu ay keenin Tabu Teluguga way dib ugu soo laabanaysaa iyo filimkii ugu dambeeyay Telugu ay keentay wuxuu ahaa filimkii soo baxay sanadii 2008 marka muddo 10 sano kadib waxay ku soo laabanaysaa shineemooyinka Teluguga atrishada lagu magacaabo gabadhan Tabu ah oo filimada Hindiya wax badan aad ku barateen ayaa filimkan la jilaysa actorka weyn ee Allu Arjun oo ay la wada filimka kan atrishada lagu magacaabo Pooja Hedge iyo kuwa kale ku jiri doono marka Tabu bariyahan unba waxa loo adeegsan doonaa maamo iyo hooyo iyo waa atrisha yahay jirtay bariga hore marka ay jeel haysiisa iyo actorada sunishati la haysiisa atoorayaasha caanka ay la hayso waxay ahayd atrisha indhahdooda ka qaadi karin quruxdeedu laakiin hadda markay soo daqoobayso waxay filimada ku jiilaysaa maamo iyo hooyo baa la leeyahay waqtiga iyaba hooyo dhehaysa marka filimada waxa laga yaabaa filimkan inay kolba hooyo ku jiri doonto marka Tabu filimka looga yeeray filimka kan waxa soo wada actorka weyn Allu Arjun waxaana filimka kan soo bixistiisu la sheegay inuu noqon doono January 12 ku soo baxaya bisha January cusub sanadka 2020 January 2020 ayuu soo bixi doonaa isagu waxa isku dhici doona filimka uu soo wado actorka weyn ee lagu magacaabo Mahesh Babu marka kolba wixii xirfadeynaya actor Allu Arjun wuxuu leeyahay Mahesh Babu waa tartan kugu sugaye oo filimkiisa isku dhacaysaane bal actor weyn filimka ugu yeero marka uu Tabu ugu yeertay si filimkiisa saameyn weyn uu sii yeesho inkastoo isagu yahay actor weyn oo wax badan ka kara وكايد أركيسان ugu dambeyntii waxa bilaabatay duwista filimka ay soo wadaan Sara Ali Khan oo gabadhu dhalay Saif Ali Khan iyo actorka Farun Dhawan oo isaguna mid kamid actorada ugu wanaagsan hadda Bollywoodka Hindiya waxaanay doowayaan filimkii hadda ka hor sagaashameeyadii ay duubeen actorka weyn Govinda iyo atrishada lagu magacaabo Karishma Kapoor hadda labadaas ay jirayaan iyaga yani qaybtii hore filimkaas wuxuu ahaa Kolino 1 haddana qaybta labaad ee filimka Kolino 1 ayaa qayb cusub laga sameeyay waqti hore maadaama dadkii hore ay ahaan jireen sagaashameeyadii dadkii filimadu daawo jir hadda saaxada ka sii baxayaan daawashadiisu maadaama jil cusub ay soo baxayaan filimada Hindiya jecel kuwan baa qaybta la filimkan soo sameynaya marka wuxuu iska dhigaya ma aragtay sida Govinda iska dhigaya dharku Govinda xirnaa markii filimka Kolino 1 la bilaabay wuu dharka Govinda ku soo baxay dharkii wata isaga iyadana waxay wadataa dharkii ku soo bixisay atrishada lagu magacaabo Karishma Kapoor way wadataa marka waxay jirayaan qaybta labaad filimka ay hore u keeneen actorada waaweyn gabadha lagu magacaabo Karishma Kapoor iyo ninka la yiraahdo Govinda filimkii Kolino 1 qaybtiisa hadda duubaya oo soconaysa waa kay maanta baraha bulshada la isla wadaagayay labada actor oo hadda filimka duubista ku jira waxaana filimkan qayb badan lagu soo duubay Bangkok Thailand sidoo kale haddana wali duubistiisa baa socoto David Dhawan ayaa filimkan marka la soo saaraya isaga ayaana filimka hore u soo saaray hadda wiilkiisa Farun buu dhibtayo ma arkaysaan waa la soo wada filimkii Kolino 1 waad arkaysaan gabadhu waxay jiraysaa booski Karishma waa Sara Ali Khan Farun wuxuu jiray booski Govinda Govinda booski wuxuu jiray Farun baa jiray marka waa filimka Kolino 1 qaybtiisa labaad oo ay soo wadaan gabadhu la Saif Ali Khan iyo Farun Dhawan marka Kolino 1 dharkan buu watay filimka oo wuxuu ahaa xamaali number 1 buu ahaa Govinda waxyaabaha kale ugu todobaadkan ugu yaabka badnaa aflaamta diga ama ugu sheekada xasuusaha badnayd todobaadkan waxay ahayd waxa aad loo xasuusanayaa oo loo wada hambaleynayaa 25 sano guuridii ka soo wareegatay markii Hindi laga sii daayay filimka la isugu tagay atoorayaasha iyo atrishiyaasha war waa filimka kee andaas abna oo yaa waday Amir Khan igu xiji mid kale Salman Khan gabdhuhu mid iga sii Karishma hayga dayn wali mid kale igu dar Ravina Tandon wali isugu tagay laba atrisho superstar ah iyo laba actor superstar ah waa isugu tagay wali iyaga aad u yar oo wali aad loo jeclaa filimkan daas abna amda ayaa u dabaaldegay leeyahay 25 sano kadib markii filimkan uu soo baxay yani 25 sano lagu joogo leeyahay filimkan markuu soo baxay sanadii 1994 bishii November marka November xilligan oo kale bishan oo kale uu soo baxay 94 marka 1994 filimkii soo baxay andaas abna ay wadeen Amir Khan iyo Salman Khan iyo Ravina iyo Karishma ayaa hadda waxa laga jooga muddadaas 25 sano aad baa loogu hambaleynayaa actorada filimka jiray waxaana muddo dheer la raadinayay hadda in la sameeyo qaybta labaad andaas abna oo la isku keeno mar kale Amir Khan iyo
ninka la yiraahdo Salman Khan inkastoo ay duqoobeen ugu dambayna atrishada caanka ay Tabu ayaa loo wada hambaleynayaa atrishada caanka ay Tabu ayaa waxay noqotay 48 sano jir bay noqotay oo waa kay Tabu tobaadka looga yeeray filimka Allu Arjun baa lagu darayo waa da'weynaad waa kay waxay noqotay 40 jir bay noqotay oo November kasta iyadu wuxuu November kasta markay bishu 4 tahay wuxuu u dabaaldegaysaa dhalashadeedu dhalash cusub u dabaaldegi doontayo waa kay Tabu loo wada hambalina isbuucan oo waxay noqotay 48 sano jir bay noqotay waxay dhalatay 4 November 1971 marka Tabu oo Hyderabad ku dhalatay baa tobaad ku gaartay 48 sano jir waxaana dib ugu laabanaysaa filimada Teluguga oo 10 sano kadib ugu dambeeyay waxaana film la keenaysaa aktarka weyn ee Allu Arjun inta baan ku weynaynaa maanta aflaamta Hindiga sida ay nabadgeliyo